السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال waxaad naga daawanaysaan runsheeg media oo fadhigeedu yahay magaalada Edmonton gobolka Alberta dalka Canada daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii aan ku falanqeyn jirnay dhacdooyinka ka dhaca gobolka Alberta khaasatan magaalada Edmonton daawadayaal dhacdo mar labaad soo laabatay asbuuc gudahooda oo la xiriiray cunsurnimo lagu sameeyay gabdho xijaaban iyo xaaladda COVID-19 barnaamijku waxaa idiin soo tabanaya anigoo ah Cabdinaasir Faarac Ciise dhanka kaamarada editing-ka waa runsheeg media sidoo kale waxaa khadka Zoom-ka noogu jira madaxa Tacalusa Institute Maxamed Cakood aan ku hormaro waxaa mar labaad asbuuc gudihiis lagula kacay fal cunsurnimo ah oo la xiriiriyay midabta koor iyo islaam nacayb sidoo kale waxaa ka hadlay mas'uuliyiin badan oo uu ka mid yahay duqa magaalada Edmonton Don Iverson. I'm saddened by two racially motivated attacks on our fellow Edmontonians in under a week. That these assailants targeted hijabi women of color is unacceptable. And I condemn these assaults in the strongest terms. This City Council has made clear time and time again that hatred in any form, including racism, misogyny, and Islamophobia, have no place in our community. daawadayaal sidaan hore idinku soo sheegnay waxaa khadka noogu jira madaxda Tacalusa Institute Maxamed Cakood ku soo dhawo Maxamed Cakood walaal waa mahadsantahay Cabdinaasir adiga iyo dhamaan maxaa la yiraahdaa warbaahintiina saad og tahay maalmahan waxaa soo laabanaysay arrimo ku saabsan haybsooc iyo cadaawad loo qaaday dadka Soomaaliyeed siiba haweenka oo iyagoo meela maxaa la yiraahdaa ka adeeganaya lagu weeraray wiil ka hor waxaa la weeraray hooyo iyo gabadha gaarigooda isaga dhex jira oo aan wax shuqul ah iyo wax maxaa la yiraahdaa hawl aan wadinin nin baa u yimid waxa weeyaan ataa wuxuu ku bilaabay weerar buu ku bilaabay shalayto na waxaa dhacday iyadoo tii laga yaaban yahay oo laga dagaalamayo baa shalay waxaa dhacay gabar rabta inay raacdo tareenka baa gabar naag kale saasoo kale u weerartay waxay ku fiicnay midaan marka gabadhan Soomaaliyeed waxa meesha taagnaa nimanka meesha ilaaliya taasi waa horta arrinta dhacday weeyaan laakiin haddii sida kale laga fiirsho gobolkan iyo magaaladan wadankan dhibaatadan ah midab kale cunsuriyada iyo caydaan waa wax iska socday baa heedo dadka intiisa badan ay la kulmaan rag iyo dumarba laakiin waxa hadda soo kordhay in dadku ku dhaqaaqaan inay gacan qaadaan inta badan waxa laga yaabaa qofka haduusan kala rahan ku nicin gabdhaha hadda waxa lagu adeegsanaya waxa iyagiyo madow ah ba haddana muslimnimadooda lagu weeraray marka maalintii hore oo gabdhaha la dagaalamay dacwad baan ka furnay ninkii waa la qabtay laakiin dacwad baan ka furno sababtoo ah iyo gobolka Premier-keeda labadaba waxaan ka fulaynay inay maxaa la yiraahdaa arrintaas wax ka yiraahdaan oo ilaha la shacabka oo ay media wax ka yiraahdaan taama aysan sameeynin tweet yar abay soo qoreen taas horta aad bay noo dhibtay hadda Friday-dan soo socota rajo waxaa meeting noogu yeeray ninka la yiraahdo ninka wasaaradda cadaaladda ee gobolka haysta iyo gabadha culture-ka u qaabilsan dawladda hadda gobolka haysata city-gu waxaad moodaa just waxay rabeen PR ahaan bay u rabeen dad iyagu hadda noo muuqato inay arrintan ay u qaateen si maxal xasaasi ma jirto marka wali ma aanan deynin walaal waxa weeyaan arrintan waxaan rabnaa inaan maanta waxaan wada hadlaynay saddex qof oo maxaa la yiraahdaa dadka community-ga hogaamiyashooda kamid ah ama ka dhidhiyay all waxa la isla qaray arrintan inaysan u ekayn mid istaagaysa haddaan wax laga qaban hadda marka waxaan isku dayaynaa hadda
inaanu tala ka yeelano oo sidaanu arrintan u wajihi lahayn inaan ka hadalo laakiin dadkiina waxaan hadda faraynaa inay is ilaaliyaan soo maartay si dadka hadda waxaad ogtahay dee cudurkaana balaayo soo dhigay dadkii guryaha kooda xiriiran yihiin inteeda badan dadka Kanadiyaanka ahi wararka waxay ka helaan dhinacan Mareykanka haddana waad ogtahay nin waxaa jooga halkaan oo maartay madaxweyne ka ah oo isaguba cunsuriya taasaa marka waxay ku sameynaysaa inay maartay kor u soo saarto wixii ay gudaha ku qarsanayeen marka hadde waxa weeyaan waa wax maartay annaga hadda kolleyba nagu cusub naguma cusbo actually dhowr qof oo dad la dhibaateeyay way jirtay laakiin sida hadda ay arintan u dhacday oo maalin bro cad oo dadkii la isku dayay noloshooda in la haligo waa arrin aad noogu cusub waxaan jecelnahay inaanu maartay ka daba tagno bal maarsan laakiin waxaan dadka iyaga faraynaa gabdhaha iyaga waliba inay is ilaaliyaan oo meelaha marayaan aware noqdaan oo ay iska ilaaliyaan maartay maxamed hal su'aal oo inaan ku weydiiyo arrintan ma waxay khaas u tahay dadka madow ama Soomaalida mise waa arrin islaamka la xiriira maadaama labada gabdhood baa la yiri gabdhii hore la yiri waa Soomaali oo la oran madow laakiin gabadhii hadda ugu dambeysay la yiri waa madow arrintan ma madow ee la xiriirta mise waa madow iyo islaam isla socda walaal maalinta horta waan ka dagaalanay Soomaalinimada waan ka dagaalanay qolada waxa sameeyana waxa way booliiska ayiraan iyagu fiirin taas horta muran baa ka taagan in inagana la ku sheego madow iyo in la ku sheego Soomaali magaalada lama qarin karo dad waxaanu ka nahay ugu tiro badan marka loo fiirsho dadka madowga soo dadkii in madow Soomaali ahaan lagu tilmaamo dad baa waxay ku yihiin ku qanacsan dadna kuma qanacsan horta taas marka muran baa ka taagan laakiin dadkaana waxay sida nooga muuqata ay fiirinayeen qof madow oo sababta dadka wadanka waxaa nala degan carabana degan muslina somay fahmeen marka dadkaana waxay raadsanayeen kalarkana way tahay muslimnimadana way tahay labadaba way tahay laakiin muslimka oo madow weeyaan laakiin qof carab oo hadda waxa lagu sameeyay ma jirto caabuqa COVID-19 oo dib ugu soo xoogeystay dalka Canada khaasatan gobolka Alberta maanta oo ay taariikhdu tahay 16 December 2020 ayaa lagu duray qofkii ugu horeeyay talaalka COVID-19 gabar Soomaaliyeed ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay oo qaata talaalka COVID-19 gabadhaas oo ka shaqeysa isbitaalka ku yaala magaalada Edmonton waa hagaag daawadayaal waxa halkaan noogu eeg barnaamijkeenii aan ku falanqeyn jirnay dhacdooyinka gobolka Alberta khaasatan Edmonton daawadayaal sidaas iyo nabadgelyo